الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك إن شاء الله تعالى وحكو سابسين حديث كمدة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقصة أروري في صحيح مسلم. حديث كسي أبا هريرة ورنا يوحان النبي لي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفينيا قفك مؤمن كا حقا يسدوغ خير بدن يهي كي ضعفك كتشره. قيبها الضمانة وحكوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام وصية وصينا يددك مسلمين تا وحنا بيقول المؤمن القوي مؤمن كحوقه قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي. علماء ضبط وكمية إمام النووي رحمة الله عليه وحليه: والقوة في الدين والتقوى والعبادة. قفك مؤمن كي كحوقا عقيدة ديس يا دين تيس يا عبادة ديس كاول اسكو هذا الرعسي سين كاسا خير وأحب إلى الله كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف. مؤمن كعقيدة ديسا أما إيمان كيسا أما عبادة ديسا أما أعماشيسا آخرة أي ليدته. وحكلا علماء كت المامان المؤمن القوي. المؤمن القوي الرجل القوي هذا أي القوي في رجولته كاسوا معناه لبعض علماء التلمامة وحويان إن قوة الله إطلاقه ومؤمن كحوق بدن له، سواء هدو حوق جريدي هاي أو دي جهادي عبادة يكو استعمال أما هدو حوق عقليادي هاي، أما هدو حوق علميادي هاي، أما هدو حوق عبادي أي باب حوق وقل كرابي لي. marka mu'minka awoodda badan leh ee awooddiisa si khayrka u adeegsadiya iimaanka iyo intaajka iyo wax soo saarka, mu'minkaasaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah. culimmadu waxay yidhahdaan fil asli dee quwada waa layna faray, waaciddu lahum ma statactum min quwa baa ilaahay yidhi markii gaalada iyo jihaadka laga warramayay. waxaa u diyaarsataan wixii xooga a awoodaan oo dhan baa la yidhi. idan xooggu في كل أبوابه هذه خير له أديك سنة يوا خير. وواحد هذا مؤمنك شرهان حق بدن قوة بدنية له خير كوا أديك سنة يا ده كوحتر بدنية مؤمنك ضعيف كيسكليته يعني سقوا بدن قبل كرينين. مؤمنك حقه في علمه وفي إنتاجه وحصصار كيسيا قونتي سي حق بدن تهي dadka ku anfacaya wuu ka fadli badan yahay kii jahliga ku jiray amase kii aan muntijka ahayn ee laziga ahaa, kii qofkii iska fadhiyaan wax soo saarka lahayn. waxay duuduub ahaan tilmaamaysaa quwadu xataa quwa albadaniya. qisadii matala nebi muuse ilaahay markuu ka warramayay reer u yimi magaalada meesha dadku xoolaha waraabsanayaanee habluu laba hablood ay xoolahoodii cidlo ula baxeen. maxaa idinka idinku dhacay buu yidhaha xoolaha waraabsan weydeen. waxay yidhahdeen annaga aabbahayana waa gaboobay, yacni waa daciif maa yaqdir shay. annaguna ma gallo raggu meeshana isku jiidhayaan ilaa iyo ay ka baxaan. dabeetana wuu u waraabiyey. hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo
ayaa waxay tidhi yaa abati ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin aabbow ninkan shaqaalaysiisa bay tidhi oo ajiir ka dhig ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin bay tidhi qof shaqo loo dirto waxa u fiican qof xoog leh oo qawiyo wixii qaban karaya ammaanana leh idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa mu'minka xooggan oo ay ugu horreysay ilaahay rumayntiisa iyo taacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhire ku xooggan dad baa jira sida kale u xoog badan laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah qof wax soo saar leh kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa fii kullin khayr mu'min oo dhanna khayr baa ku jira hadduu qofku iimaan iyo camal la yimi ha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira waxay yidhahdaan culamaa ilbalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa مثلا إلهي القرآن كوحكويري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا مص النبا إلهي يري كوي فتح مكهر تدحولها بحيات دقا الله ما يدين توسوها القمي كوا ساد درجة صرية وفتح مكة وحي كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين haddaad sidaa u fahmi lahayd way qaldami lahayd laakiin ilaahay baa kasii jawaabo wuxuu yidhi wakullan wacada allahu alxusna dhammaantood ilaahay baa u yaboohay wanaag labaduba wanaag bay leeyihin sidaa awgeed maalan qisadii nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ee wax xukumay marka ilaahay tilmaamaya wuxuu yidhi wadaawuuda wasulaymaana id yaxkumaani fi lxarth id nafashat fiihi ghanamu lqawmi wakunna lixukmihim shaahidiin fafahamnaha sulaymaan baa ilahay yidhi waxaad xustaa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan markii ay xoolihii beerta galay xukumayeen waxaa ilaahay ku tilmaamay fafahamnaha sulaymaan nebi sulaymaan baanu fahamsiinay nebi sulaymaan baa la fahamsiiyey daawud wax garan maaya miyaa maya si aan kaa looga fahmin baa ilaahay yidhi wakullan aataynaa xukman wacilma dhammaantood waxaanu siinay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xukum iyo cilmiba labaduba dhammaantood way lahaayeen آيات كلا إله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى على كل نحن وصعنا وفي كل خير إني تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لقاها لا طاعد سليمي كل بين خير كسوغيني laakiin markay timaado mu'minka in classification lagu sameeyo in la kala sooco inuu ka qawiga iyo ka khayr badan yahay ka daciifka abuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaacidada markuu nabigu sheegay ayuu wuxuu inoo tilmaamayaa dardaaranana siinaya dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya wuxuu nabigu yidhi kow احرص على ما ينفعك waxaad ku dadaashaa oo ilaalisaa waxa ku anfacaya nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa waqti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadkay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababtay u kala noociyeen waa masaladatan camalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid oo inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduun dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ihras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya
waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag. waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin. dadka in badanoo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba, marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan, waxay ku madadaashaan. madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo, xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo, aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn. adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa, aakhirana wax kama tarayso. qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak, calaa maa yanfacuk, ku dadaal waxa ku anfacaya. bitacbiiri ahli lcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan, qof wax soo saar le ahaw, qof wax tara ahaw, qof wanaagga qabta noqo. noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay. haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag. haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh. sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh. siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo oo dhammi waxtar ma leh. kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhammi waxtar ma leh. wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badani waxtar ma leh. wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisii ku qaada. nebiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih. qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin. tarkuhu maa laa yacniih, waxaan isaga khusaynin. waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin. maanta dha haddaad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay, adiga waxba ku tari mahayaan. warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso. akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan le waxba ku tari mayso. waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhammi akharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba. inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn. marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ku dadaal. intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah, ilaahayna kaalmayso. ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakerayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro. qofka mu'minka ee dhabta ahi guruur kuma dhaco iyo cujb, isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana. qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay, mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay ishortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahu adaanu ku caabudaynaa keligaa baanu kaa kaalmo dalbaynaa. qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga, waa qof muujiya inuu yahay addoon daciif ah, waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah. wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna, khasnadaha jannada ka mida makuu sheegaa? faqultu balaa yaa rasuula allah, haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan. laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane, ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane
anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna ma lihi qofka muslimka ay markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna uu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo arguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaardhe nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tacjis iyo tacjas labadaba waa la odhan karaa buu yidhahdaa imaamu nawowi laakiin kasrada caana walaa tacjis ha caajisinku waa maxay qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofka wahsiya cadamuliraada waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla cadam alqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay dhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodoo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabati alrijaal
isagoo ku celcelinayo le ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada. hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro. xusniguna waa wixii ka tagay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba. idan waa laba warwar ama laba walbahaar, laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tagay, midna waa waxa soo socda. nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu walkasal. waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay. qofku inuu cadam alqudra, inuu wax awoodi waayo, ama in doonistuba ka dhimato. doonistuba inay ka dhimato. oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay. waa raaxaysanaya buu leeyahay, deetana wuu jiifaya saa baktiga. waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso. qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun, intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay, intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay. sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga. jubnigu waa baqaha. waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya, dabeetana si aad u sugaysa leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa. hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba. bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin. anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin. wadalaci dayni waghalabati rijaal. waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata. xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active ah, qof nashiita, qof firfircoon, qof raba inuu wax qabto, qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan, qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya. walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi, waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yawmin 1000 xasana. maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa? nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana. oo midkaa yeesuu 1000 xasano u shaqaysan karaa, 1000 ajara u heli karaa. qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana. dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa laguu qoraya. subxaan allah intay kaa qaadanaysa? 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute. ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto. saacaddii misaad shaqaysan karaysa? waxaa meesha taalla markaa nabigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa, aw yuxatu canhu 1000 khati'a, ama 1000 dambaa laga dhigaa. cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan. ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan. si awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa. acjasu nnaas man cajisa can idducaa. dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo. wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam. dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum. assalaamu calaykum waa duco. inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa. ayuha alaxiba, waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga. marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada. waayo subxaan allahi haddaanad ajarkeeda garanaynin waa aqoon darra ku haysata. aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo. hadaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata. walow uu xoog badan yahay, walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo, walow uu caqli badan yahay,
mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garaadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidna waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba si aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamar darradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajastu an akuna mithla hada alguraab فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين إن آدم كي ولالكي دلي مركو دنبغا جيستي ولو حوق وينا يحوق ولالكي كدلي وقبي كدب قندرده هيستي waxay noqotay si uu galo meydkii walaalkii buu garan waayay ilaahay baa wuxuu soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acajastu an akuuna mithla hada alguraab halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi dad badan oo maanta soomaaliyeed oo iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiyey jahligu markaa dadka wuu duleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا قونتا كمدة ساوغيت أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن قال دردار ميا استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجزي قرآن كان إلهي وحينات المامية إن بدن با إلهي وحكى القرآن كقورة ما يرير بارو إسرائيل لليه خذوا ما آتيناكم بقوة وروح عن دين كانوا يدين سودة شني ورسي اجتهادي يفر فرعوني حوق وكتشرو خذوا ما آتيناكم بقوة با إلهي ليه نبي موسى محا إلهي ليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي النبي يحيى الله هدلي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحوقا وقادبا ليلي سي جدية سي اجتهاد كتشرو سددال يفر فرعوني كتشرته إلهي كتابك سوق هذا بالليل وحق قرآنك إلهي وكس فينيا دتك وهسك يا عكس وهيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إلهي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وعقوت المام صلاة هذا وكعا وكعا يجو كسالى يجو وهسي عاجس وهيو ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يما دام با إلهي إيغو حالة كسوغان مويان أيها الأحبة مركز وهستا عماش ويس فولفوشا وحي ما أنت كوها بونا إن أتقبطا مركز قبان ويدو ويس سيكورتا سيأوغيد با إلهي وحكوت المامية يا أيها الذين آمنوا
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض وردتك مؤمنين تهم حيد كل عي وهدي الله إذا هذا إلهي تيسا وصباح جهادك وصوكع أثاقلتم إلى الأرض بالله ما حد لك يدن كعس ليي يا إلهي إلهي سبحانه وتعالى ما حد لك سقرنا بيساره وكعكين ويدين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما أدون كآخرة كتشعلات با إلهي إلهي فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu thubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna waxaa idin ka midaba ilaahay leeyahay mid dadkaba cagsi gelinaya oo fadhiisinaya oo dib u reebaya waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqeysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhahdeen laziness-ka iyo wax qabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelahaas ay noqotay qolana 5700 maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar galaya ولذلك بقى طبعا ما انت waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskaliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii inta soco inta qabo inta yani waa wax qabo fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduuna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ee waxa meesha taala qofka mu'minki inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barba isle faataka alqataar ka sheegi jireen yani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta xalaya dadka baraysa oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysa dad ba kuntan jirreynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat as-saa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la taqum hatta yaghrisaha falyaghrisaha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxa la yiraahdaa geetimireedka yar la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaarsiin karto inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaarsiin karto beer waynaga iyadan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa una leenahay waan gaboobay Soomaalidu 40 jirkay ku gabowdaa Soomaa في Soomaaliga markuu bini'aadamkuba uu xoog badnaa markuu gaaro ayuu yiraahdaa waan gaboobo xolabo iga dhamaadeen bini'aadamku aqligu ka gabooba haddaad maanka ka gabowdo ayuu maad gabowday inta kale waxbaad qaban kartaa inta kale waxbaad qaban kartaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla al-mawt in furas jiro inta geerida ka horeysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yareysanaysaa wax weyn noqda waxaad yareysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraan inaad qaybtaa waa wax kula yar Soomaa xadsalada oo haddaan maalin kasta sadar qayb goorma quraanka dhamayn haddaan sadar qayb goorma quraanka dhamayn waxay dhahan dhowr iyo 10 sanadood ku dhamaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto
هذا هو صدر هل صدر واحد هذا waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markan aad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tiraahdo ma xaashi aan qoray ba buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanu waantum laclawna in kuntum mu'miniin wartadka mu'miniinta wahniyo idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinka koreeyaba ilaahay tilmaamaya hadda kuwa mu'miniinati hadda dariiqa iimaanka raacdaan waa koreynaysan hatta markan awoodaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin inta qabo sawgeed ba ilaahay quraanka wuxuu leeyahay wakaayyin min nabiyyin qaatala ma'ahu rabbiyuna kathiir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه الربيون معي سايلا دقال قالين كوا ربي لو نسبي داد إلهي سليبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدول دقين وحي نغدين داد ولو مركاها لقى حوق بتي وضع عملك إلى ينتهي نتيجة ذاك قارية أيها الأحبة مركا حديثك كم النبي وكو قبيني عليه الصلاة والسلام وارت الماما يصح إريق اللوء وحي كاتقي تيران يدو دينار تسخو مشغولين ووحو النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام هاورنين بل ما هدان سدا يالي لها وحاسا صوبح الأساسا نقولها فإن لو تفتحه وحي فرطا لو وعمل الشيطان الباب كالشيطان كي فرطا ومحاجرة القضاء والقدر مرة دوكو دافه لما على عالو قاربا وحي لهذين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أدينا لتشوقي لهاي وقوة منافقين وحيلين مسلمين تصور ما نسهدي اسكتشوقي لهايون نلا فردي لهايين ما ماتوا وما قتلوا من يدنتين لبندلين إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وحتى قريه نادا كترتان انت وقتك وكرنا ما تجرد وما الله يبقى إلهي سبحانه وتعالى سأوجد لو waxay culimada qaar yiraahdaan mawduuc tacliimku bay ku fiicantay ayaa la isticmaali karaa oo mesela jaamacad baad ka soo qalin jabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yiri ila tale markaas waxaad ku tiri maanta haddaan chance ka haysan lahaa low kan haddaan chance ka haysan lahaa kan maan galayna ka san gali lahaa
وللتعليم قف كم بعد ربطين هذا والنتيجة أنا وضدا صومر يوم في عناه واحد سكوت ضيدا محي كان كلينا ساس الدرادات بالنبي لها لو استقبلت من أمري ما استدبرت markii ay ugu tilmaamayay dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadiga waday haddaad hadiyadu wado ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nabigu leeyahay hadigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam culamada waxay yidhaahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay لكن باب علاعلك هديت هاي بيلين ما بنانا وهو محي قل ما شاء الله كان وين رميستا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وحي تجي وحبك ما بدالي كرتين ما دام أنا وحبك بدالي كرينين إلهي وحقت الماما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحدون أمو يعني wax kale idinku dooni kartaan ma jirto in allaha kaana caliiman xakiima bal waxaad ka calaacalayso waxaba laga yaabay khayrku saa ku jiray wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum waxaan ku soo koobaya marka xadiiska dhammaantiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno وإن أصابك شيء فلا تقول هدي وحسدي أتربتين نتيجة ودع ويدنا هأوران نبو نبي عليه الصلاة والسلام هذا صدا يسدا يلي لها لكن واحد هذا قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين